Sirta guusha. Waad guulaysan kartaa. Waxaana qoray Dr. Shifa, faylasufkii weynaa ee Socrates, ayaa waxa su'aal weydiiyey arday ka mid ah ardaydiisa. Su'aasha uu weydiiyey waxay ahayd: waa maxay sirta guushu? Socrates ayaa ugu jawaabay: haddii aad rabtid subaxa hore aroortii, igu kaalay webiga qarkiisa. Waan kaaga jawaabi doonaa su'aashaada. Markii la gaadhay xilligii ballanta, Socrates iyo ardaygiisa waxay isugu yimaadeen webigii. Socrates ayaa ku dhahay: ina keen biyaha webiga aan harusi galnay. Kadib biyaha ayay gudaha u sii galeen. Kadibna wuxuu sameeyey intuu qoorta soo qabtay ayuu biyaha madaxa u geliyey. Waayo Socrates wuxuu rabay inuu ardaygiisa baro xikmad waxtar u leh noloshiisa, jawaabna u ah su'aashiisa. Ardaygii wuxuu is yidhi: waa lagu imtixaamayaa ee adkayso oo neefta isku celi. Dhowr daqiiqo kadib, intuu adkaysan waayay, ayuu bilaabay inuu rafto. Dhowr jeer wuxuu isku dayay sidii uu madaxiisa bannaanka uga soo saari lahaa oo biyaha uga soo saari lahaa, si uu hawo u qaato. Laakiin markastuu is yiraahdo madaxa kor u soo qaad, Socrates ayaa dib ugu celinayay biyaha. Balse markii uu arkay inay xaaladdu ka xumaatay, ayuu madaxa u sii daayay. Waxaanu weydiiyey su'aashan: markii aad biyaha madaxa kula jirtay, maxaad raadinaysay? Durbadiiba wuxuu la soo booday. Socrates ayaa ku dhahay: haddaba taasi waa sirta guusha. Macnaheeduna waxay tahay u baadigoob sida aad ugu baahan tahay hawada. Macnaheeduna waxay tahay u baadigoob guusha sida aad ugu baahan tahay hawada. Fadlan subscribe saar channelka si aad u hesho wax kasta oo aan soo gelino. Mahadsanid. Fadlan haddii uu ku qanciyay video.